بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Salebaan Ibrahim oo ku nool gobolka Togdheer waxaan doonayaa maanta in aan ka hadlo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi oo bariyahan dambe ku hawlanaa inuu hantidii ummadda uu ku bixiyo in la amaano waxa la sheegayaa dad uu yiri amaana oo ku siiyay baabuur lacagtaas oo lacagtii hantida ummadda sidaa awgeed waxa halka ka muuqata mas'uuliyad daro mas'uuliyadii loo xil saarayna wuxuu ka doorbiday inuu u ololeeyo inuu yiraahdo amaana sidaa awgeed waxa aan leeyahay waan arinta waan cambaaraynayno haddii aan hay Salebaan Ibrahim waxaan kale oo doonayaa inaan ka hadlo arinta baarista shidaalka iyo baabuurtan la keenay iyo ciidankan aad awood badan leh la keenay gobolka Togdheer iyo Daadmareed waxaan leeyahay magaalada gobolka Togdheer iyo gobolka Daadmareed uma baahna xuduud ciidan uma baahna caga jugleyn uma baahna arjuuqle iyo caburin wuxuu u baahan yahay caawimo cunto iyo calaf xoolaad maanta xaalad degdeg ah dalku ku jira xukuumaddu maanta ma yahayn inay isku hawsho xarika jar mashruuc iyo sahamin shidaal waxay ahayd in la badbaadiyo dadka iyo xoolaha dhamaanaya waxay ahayd in maarshaal loo dalka la geliyo in xaalad degdeg ah la geliyo in ummadda iyo dadka loo gurmado in ambalaasyo la soo kaxeeyo oo dadka xanuunku waasheeyna nafaqdarradu loo gurmado ma yahayn maanta in xukuumadda uu hogaaminayo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaay in uu soo kaxeeyo hobollo oo yahay hees waxaan kale oo sheegaya baabuurtan la keenay min kale leeyahay shidaale hambariska wadatay la leeyahay dhulka lagu garaacaya waa laga gudbay xaaladii hambarka lagu garaaci jiray shidaalka satellite-ka laga sawiraa waxaan sheegaya oo la cadeynaya oo dad aqoon u leeyahay noo sheegeen in baabuurtan meesha socota ay ku rakiman tahay wax la yiraahdo magnet diamond oo marka dhulka hambarka lagu dhifto 140 mayl dhagaxanta macaadinta ah ee diamond ay kamid tahay ee waliba danabku kamid yahay oo dhulkeena aad ugu badan in la doonayo in 140 mayl laga soo saaro waa qalin shubato waa xaalufin waxa aan leeyahay halkii xabo ee danabaha dhulka ku dhacay ee hambarkaas ka daba tagayeen diamond magnetkaas oo 140 mayl ka soo qabanaya xabadii waxa weeyaan $10 milyan ee suuqa caalamka maraysa waxa la doonayaa in 7 bilood ay sheegayeen waxba natiijo ka helayna in ay ilaa $20 bilyan oo dollar ay ka boobaan dhulka oo macdintii ku hoos jirtay ay kala soo baxaan innagana ay noogu sheegan hadhow shidaalkii waa laga waayay waxaan leeyahay dadka deegaanadaas ku nool ha ilaashadaan dhulkooda waxa weeyaan waa qalin shubato waa boob waa xaalufin waxa ay doonayaan muddada yar u hadhay markay dekadii iyo eerboodadii iyo wixiiba ay xaquuqan ku qaateen in kuwa qalin shubateeyaan sidaa awgeed shacabka reer Soomaaliland meel kasta uu joogo waxaan leenahay dhulkiina ilaashada waxaan waa xaalufin waa qalin shubato aqli kale meesha maraya ma jiro Siilaanyo markii uu ahaa mucaaradka waxa uu inoo sheegay inaan dal aan la aqoonsan aan shidaal laga soo saarin balse ay tahay boob iyo qashin la aasayo maalintaas sax buu ahaa maanta se maafiyada ku xeerani waxa ay doonaysaa inay dalka qalin shubatayso waxaan idin leeyahay shacabka reer Soomaaliya dhulkiina ilaashada inta waxaan ku darayaa warbaahinta madaxa banaan waan u mahadnaqay laakiin waxaan leeyahay war maanta xil baa idin saaran inay dadka gaarsiisaan khataraha inagu xeeran ee maafiyada dawladda ay dadkii ay boobayso ay qalin shubataynayso. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.